maanta waxaanu joognaa magaalada Kinshasa ee Democratic Republic of the Congo oo uu madaxweynuhu ku yimaaday safar isagoo la kulmay madaxweyne Felix Tshisekedi oo ah chairperson-ka African Union-ka labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo xoojintiisa waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha ka dhaxeeya oo uu hadda hoggaanka u hayo madaxweyne Tshisekedi oo ah African Union-ka iyo kaalinteedii ay ka qaadan lahayd arrimaha Afrika ka taagan magaaladan Kinshasa ilaa iyo intii uu madaxweyne Tshisekedi xukunka chairperson-ka uu qabtay waxaa imaanaya wufuud kala duwan oo ka socota dalalka Afrika ay hogaaminayaan madaxweynayaal kala duwan safarka madaxweynaha kama duwana safaradaas ay madaxweynayaasha kale ku soo gaareen